السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو هذا channel كيغا عاشا حرابة وين السلام يا صحابي ميلاد شوكتان با waxaan rajeynayaa insha Allah biidmi Allah inaad caafimaad qabtaan caafimaad iyo cimri dheerna waan idin rajeynayaa iyo cibaado suuban intaba waxaan caawa ka hadlayaa insha Allah biidmi Allah warkii horeba war soo dhaafiyay wadaadadii oo is haysta waxaynu arki jirnay wadaadda dadka wacdiya oo wacdiga iyo wixii maxaade ma garanaysaa dadka munaafacaad ummadda u leh un ka shaqeeya laakiin waqtigu iska akhru samaan waxaa soo baxay wadaadda iyagu is haysta hadda waxa weeyaan halka mar haddii wadaadadii is qabsadaan oo wadaadada iyagu is haystaan meel loo irkadaba ma laha ayay ka dhigan tahay waxaan la wadaagayaa insha Allah biidmi Allah sheekh ku dhagan shuyuukhda qaar haddaan carabaabana ixtisaam kulley waxay u kala baxeen wadaadada laftigooda ayaa waxay noqdeen firqa noqday marka kulley soo waa firqa kale u maleynayaa wadaadkan oo sheegay ixtisaam inay kamid yihiin asal bilow inay yihiin qolada maanta loo yaqaan al-shabaab wuxuuna sheegay sheekhani inuu hayo cadaymo ku filan haddii loo baahdo inuu cadaynayo oo waxaanu cadaynahayn aanu meel la soo istaagin haddaba sheekhii oo ma garanaysaa hadalkiisii ka sheegaya halkan aan bal idin yara kala baxo si aad uga bogataan insha Allah biidmi Allah وانا السلام يا walaalayaal channelkana subscribe-ka noo saara aad iyo aad baad u mahadsantihiin labada qodob aan sheegay iyo kuwa kale oo aan ku dari doono oo aan hore u sheegin cadeymahooda inaan soo bandhigo haddaan cadeyntooda markaa soo bandhigi kari waayana hadalkaygaasi nuxurkiisu wuxuu ahaa laba qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa qolada shabaab la yiraahdaa inay asal ahaan ka soo jeedaan xisbigan kale la yiraahdo al-ictisaam oo ictisaamu dhalay oo raximkiisa ama ilma galeenkiisa ay ka soo baxeen qodob kalena wuxuu ahaa inay isku usuul yihiin oo isku manhaj yihiin waxa isku khilaafeen siyaasad iyo xukum iyo waxyaabo ay tahay hadalkayguna uu duuban yahay hadalkaasi taariikhdiisa haddaan ku yara noqdo waqti hore ayuu ahaa sanadkii hore 2021 laakiin waxaan filayaa in mar damba uun dadka qaarkood ay ku baraarugeen waxaanu ku dhex jiray darsi aan arday u dhigayay hadal shir jaraa'ida amaba se muxaadaro si gaar aan u qabtay muu ahayn hadalkaasina ma aha hadal aan hadda uun idhi 10 sannadood ka hor baan hadalkaasoo kale idhi anigu isagoo sidiisaasi u dhigan waanu duubay YouTube-kana ku jira isagoo codana meelo fara badan oo mareegaha internet kamida ayuu ku jira manayhi anigu qofkii u horeeyay hadalkaas oo kale yiraahda dad aniga iga waaweyn oo iga cumri weyn taariikh aan anigu joogina u joogay iyo dad iyaga aniga iga dhawaa intuba hadalkaasi mid la mid ah yiraahdeen waa hadaladooduna way duuban yihiin qaar BBC-du ay wareysatay oo u sheegay in xisbigaasi uu dhiig fara badan oo dad muslimiin oo Soomaaliya u daadiyay waajibkooduna uu yahay inay dadka u cudur daartaan ilaahayna u toobad keenaan isla markaana dambi weyn inay galeen oo siduu isagu u dhigay sheekhaasi uu yiri 7 badood haddii la isku daro waxaad gasheen mayri maayaan waxa kaloo kamid ah rag iyaga ilaa imika le iyagaan kamid nahay oo hadalka aniga aan idho kale yiri ismaanaan ogeyn laakiin alxamdulillaah hadalkayga dabadii hadal u markhaati furaya inay yiraahdeen marka arrintani aan u garan maayo sababta looga qayliyay maaha wax cusub anigana iguma cusba waaqicana kuma cusbo dad fara badan baa hadalkaas oo kale yiri oo arrinta saas uga hadlay inta waxaan u dhaafayaa ictisaam muxuu yahay way hadalkooda waxa ku jirtay markaan dhageystay ictisaamku inuu yahay jamaaca dacwiye oo macnaheedu yahay علماء dadka diinta u dhigta oo wanaaga farto oo xumaanta ka reebto khudbadayso oo muxaadaraad jeedisa
waxaan leeyahay xaqiiqadii dhabta ahayd iyo wejigii dhabta ahaayee xisbigaasi ictisaam siduu ahaa umay soo wada bandhigin wadaadadaasi. dad fara badanina oo xoogogaal u ahi inaanu xisbigaasi wejigiisa dhabtii intaasoo qura ku koobnayn oo ku urursanayn way la socdaanoo way ogyihiin. dacwaddu shaqooyinka ay qabtaan waa ka mid, inkasta oo dadka iyaga ka mid ee xubnaha ka ah ee dacwad ka shaqeeya aaday u yar yihiin marka loo eego inta xubnaha ka ah ee dacwad baan ka shaqaynin. suurada dhabta ah ee xisbul ictisaam waxa weeye waa xisbiyada markaa siyaasiga ah qaabdhismoodkooda oo kale leh. waxaa loo aasaasay uu yahay sida iyaguba caddeeyeen in dadka dacwad la gaadhsiiyo iyo in xukumka xisbigaasi uu qabsado oo weliba wadada jihaadka iyo dagaalka uu maro qabsashada xukumka. waa xisbi leh ra'iis ama madaxweyne ku-xigeen leh, golo dhaxa leh, golo fulineed leh, barasaabyo gobollada ku leh wax wasaaradaha oo kale u dhigma oo magaca makaatib lagu magacaabo. meel kastoo ay ka jiraanna nidaamkoodu sidaas yahay. waxaan odhan karaa haddaan suurada aada ugu soo dhowaado waa dowladaha islaamka ee ay ka jiraan ka hoos jirta, isla markaana kursiga gaadaya mar ay u maraan waddo siyaasadeed hadday u suurto gasho iyo mar ay xoog iyo dagaal inay ku qabsadaan ay isku dayaan. waxaan leeyahay dadka laba iyo seekin khaldamin. culimo cilmiga baratay oo dadka u dhigta oo xer iyo arday leh weligeedba waynu arki jirnay. culimadii hore ee qaadiriyada iyo saasay ahaan jireen. xisbi siyaasi oo magac diineed huwan may ahaan jirin. saasoo kale dacwa salafiya suuradeedu waa saasoo kale, waa culimo arday iyo xer leh diinta u dhigta. madaxweyne kaadada ka dhexeeya aan lahayn, golo dhexeeya golo fulineed iyo xubno iyo barasaaba iyo wasaarade iyo wasiire iyo magac kaleba loo bixiye midnaba aan lahayn qaab dhismeedka u samaysan. marka laba iyo isku khaldamin. culimo dacwad wado arday lahoo xer leh weligeedba way soo jiri jirtay, laakiin xisbi madaxweyne leh, ku-xigeen leh, golo dhaxa leh, golo fulineed leh, xubnaloo dadkii qaar xubna ka iyo kuwo kale u qaybsamaan, siyaasiya walow dacwaddana gacan ha ku lahaado, u socda xukumka inuu isagu qabsado oo ka talinaya hogaanka markaa qabanaya isagu u noqdo, marba wadadee ugu suurto gasho isagoo maraya. labadaasi horta aada iyo aad bay u kala fogyiin. walaalaha hadle waxaan leeyahay suurada dhabtee xisbigu uu leeyahay kala reebina, siday tahay dadka ugu soo bandhiga. dadku markaa iyagu mowqifa qaataan, laakiin haddii la yidhaa uun waa jamaaca dacawiya oo dacwadda un ka shaqaysa, intii kale xaqiiqada ahaydee dadka sida dhabtaa ula socda ay ogaayeenna la reebo, waxa saxa taasi noqon mayso.